Beeraleyda gobolka Meru iyo ganacsatada qaadka ee Kenya ayaa mustaqbal mugdi oo ka haysta suuqoodii ugu weynaa ee Somaaliya. Haddii dawladda Kenya aysan ku dhaqaaqin si dhaqso leh in xal ay ugu hesho xiisadda ganacsi ee kala dhaxeeya dariskeeda Soomaaliya, sida uu daabacay jaraa'idka Daily Nation oo kamid ah kuwa loogu akhriska badan yahay dalkani Kenya. Rajada ganacsatada Kenya ayaa ahayd inay dib u bilaabi doonaan ganacsigoodii ugu weynaa ee suuqa Soomaaliya kadib coronavirus. hase yeeshee xukuumadda Muqdisho ayaa xamuulkii Meru ka reebtay in laga soo dejiyo Soomaaliya kadib markii duulimaadyadii caalamiga ahaa ay dib u bilaabeen 3 Agoosto. rajada ayaa sii xumaatay kadib markii wafdi ganacsatada iyo gaadiidley ka socda Kenya loo diray Muqdisho si ay dawladda Soomaaliya ugala xaajoodaan arrimaha dib u bilaabashada qaadka ayna ku guul daraysteen safarkoodii maadaama dawladda Soomaaliya ay dalbatay wada hadallo dhexmara labadan dawladood. ganacsatada Soomaaliya ee qaadka sida dhuumaaleysiga ku soo gelin jiray Muqdisho ayaa sidoo kale wajahaya dabaylo dhanka badda ah, taasi oo keentay in maalmahan uu yaraado qaadkii soo gali jiray magaalada caasimadda ah iyo gobolada dalka. ganacsatada qaarkood oo la hadlay warbaahintu waxay sheegeen in uu yaraaday qaadkii soo galaya dalka maadaama xilligan ay jirto badxiran ayna adag tahay in doonyaha dheereeya ay qaad ku keenaan Soomaaliya dhinaca badda iyagoo ka soo qaadaya dalka Kenya. ganacsatada qaadka ee Kenya oo la hadlay Nation waxay sheegayaan in wafdigooda uu booqday Muqdisho isla markaana lagu wargeliyay in joojinta qaadka ay sabab u tahay mowqifka Kenya ee badeecadaha laga soo qaado Soomaaliya oo ay weheliso ku guul dareysiga Kenya Airways ee dib u bilaabidda duulimaadyadii Muqdisho. sida uu sheegay gudoomiyaha ganacsatada gobolkaasi, wafdigan ayaa la kulmay wasiirada dawladeed waxayna ka dalbadeen inay dib u bilaabaan ganacsigoodii toddobaadkan. si kastaba ha noqotee, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu diiday codsigeennii ahaa inaan dib u bilowno ganacsiga qaadka. waxaan la soconnaa in go'aankan uusan ahayn mid sabab u ah COVID-19, laakiin sababtu ay tahay mowqifka adag ee Kenya ay ka leedahay soo dejinta Soomaaliya, ayuu yiri gudoomiyaha ganacsatada Meru Maxamed Qurishi. dhawaan bariis, sonkor iyo kalluun badan oo ka socda Soomaaliya waxaa baabi'iyay mas'uuliyiinta Kenya, ayuu ku daray hadalkiisa. wargeyskan ayaa fahamsan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo duldhigay ganacsatada Kenya in aan qaadka dib loo furin ilaa dawladda Kenya ay isku furto duulimaadada Muqdisho iyo Nairobi oo Kenya ay liiskeeda ka reebtay Soomaaliya xilli toddobaadkii hore ay dib u fasaxday duulimaadyadii caalamiga ahaa. dadka qaar ayaa u fasiraya arrintan joojinta qaadka ee Soomaaliya inay sabab u tahay go'aanka Kenya ay iyaduna uga reebtay listiga wadamada loo safri karo ama laga soo safri karo, maadaama Kenya ay sheegtay in wadamo xadidan oo aysan ku jirin Soomaaliya, Djibouti iyo wadamo dhowr ah aysan dadkoodu imaan karin wadankan. gudoomiyaha ganacsatada ayaa intaa ku daraya in ganacsatadu ay ku tiirsanaayeen suuqa Soomaaliya oo hadda ay ka fiirsanayaan inay galaan ganacsiyo kale si ay nolol u helaan. tan iyo markii uu joogsamay qaadka Soomaaliya 4 bilood ka hor, qaar ka mid ah ganacsatada magaaladeena waxay rajeynayaan inay helaan ganacsi kale si ay nolol u helaan. xaaladda ayaa ku liidata, dawladdu waa inay wax ka qabataa ka hor inta aanan lumin suuqa kaliya ee noo haray, ayuu yiri. gudoomiyaha ururka ay ku midaysan yihiin ganacsatada wadankan ayaa isagana ku eedeeyay dawladda in ay iska dhigatirayso codsigooda ah inay faragelin ku samayso arrimaha ganacsiga Soomaaliya, taasi oo horseedaysa luminta habnololeedkooda malaayiin Kenyaati ah. wuxuu xaqiijiyay in dadaalkoodii ugu dambeeyay ee ahaa in wafdi ganacsatada loo diro Soomaaliya lagu guul daraystay. waxaan kala hadalnay dawladda bishii Abriil inay bilowdo wada hadallada aan la yeelanayno Soomaaliya ee ku saabsan dib u bilaabidda ganacsiga qaadka. waxaa la noo sheegay in looga doodi doono shirka golaha wasiirada iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa. waxaan aad ula yaabnay inaan waxba laga qaban ilaa iyo Soomaaliya ay sii dheereyso joojinta ganacsiga qaadka, ayuu yiri gudoomiyaha ururka ganacsatada Meru ee qaadka Kimithi Munjuri. wuxuu sheegay inay rajo ka qabeen dib u bilaabashada ganacsiga qaadka toddobaadkan kadib markii wasaaradda maaliyaddu ay sii deysay tilmaamaha ganacsatada qaadka, laakiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa diiday hindisihii jimcihii ee golaha wasiirada. gudoomiyaha gobolka ugu badan ee ganacsatada qaadku ay ku nool yihiin ee Kenya ayaa sheegaya in beeraleydu ay dhawaan qaadi doonaan tallaabooyin dheeraad ah si ay ugu mudaharaadaan dawladda Kenya oo ku guul daraysatay dib u bilaabashada qaadka ee Kenya. beeraleydu waxa u beernaa noocyada kala duwan ee qaadka oo loogu talagalay suuqa Soomaaliya. waxaa naga lumay malaayiin shilin 4 bilood ee la soo dhaafay. waxaan qaban doonaa banaanbaxyo ilaa dawladdu ayna dhageysato. faafinta cudurka COVID-19 ayaa tusaale u noqday in loo ololeeyo joojinta iyo ka hortagga qaadka si dadka looga digo khatarta caafimaad ee xanuunkan iyo in laga maarmo qaadka. inkastoo dawladda Kenya ay aaminsan tahay inay jiraan shabakado Soomaaliyeed oo ku howlan joojinta qaadka, haddana ma jirto dadaalo ka socda wadanka oo muujinaya joojinta iyo ka hortagga qaadka malaayiinka dollar ku kacaya ee Kenya ay ka soo gelisay Soomaaliya. ka hor imaatinka COVID-19 waxaa jiray isku dayo ay dawladda Soomaaliya ku doonaysay inay bilowdo joojinta qaadka iyo in ay ka caawiso ganacsatada inay ka ganacsadaan ganacsiyada kale si ay ugu diyaar garoobaan xayiraadda la saaraya qaadka, ayuu yiri gudoomiyaha u hadlayay guddiga ganacsatada.
ganacsatada Kenya ayaa adeegsanayay wadada iyo badda si ay u gaarsiiyaan ku dhawaad 2 baabuur oo miiro ah Soomaaliya taasi oo qaali ku noqotay maadaama aysan jirin duulimaadyo ka dhaxeeya Muqdisho iyo Nairobi waxaana dawladda Soomaaliya ay ku guuldareysatay inay joojiso qaadka sida dhuumaalaysiga lagu soo geliyo Soomaaliya ganacsatada ayaa sheegay inay ku kacayso ilaa 1.5 milyan oo shixnada oo loogu talagalay in lagu soo qaado dooniyo dhuumaalaysi ah si loo geeyo magaalada Muqdisho waana safar qaadanaya ku dhawaad 11 maalmood sida ku cad xogta la helay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya qaadku wuxuu u ahaa tan saddexaad ee dakhliga ugu badan uu ka soo xoroodo wadanka gudihiisa sanadkii 2019 waxaa ka soo galay lacag dhan 16.6 milyan oo dollarka Mareykanka taas oo ah dakhliga canshuureed ee ka soo xarooda qaadka ee dawladda Soomaaliya u xaroon jiray balse dad badan oo Soomaaliyeed oo kale ayaa aaminsan in dhibaatooyin caafimaad iyo dhaqaale xumo oo fara badan uu qaadka ku hayay imaatinkiisa Soomaaliya si aad mar walba ula socotid wararka iyo muuqaalada cusub fadlan ku soo biir boggeena Yuusuf Cabdi Shire oo ka mid noqon asxaabteeda halkan ku xiran mahadsanid